cilada ugu weyn anaga maanta haysato shuruucdeena 1960 iyo 70 waa sharciyaal oo la cusboonaysiiyay ma lahan marka ilaa hadda horta sharciyadaas lagu shaqeeyaa waxyaabaha oo aad aan ugu farxana kamida garsoore dadweyne oo bulshada u baahan tahay in loo hiiliyo ummadda because hal garsoore inta meel fariisto dhageysta dadkii asaga iyo hal qof iyo kaalihiisa inta meel galaan xukun soo gaari jiray jirto qaab aan u shaqeyno ah in aan diyaarsano liisaskii ama kiisaskii aan gacanta aan ku hayno waxaa jiro team baaraaligal ah oo nala shaqeeyo oo faljeeda ka shaqeeyo kiisas inay la kulmaan u baahan sharci u baahan sida kale oo nagu soo gaaro waxaa kamid ah waxaa jiro hotline taleefano ah oo maxaa la jiray dadku ay soo wacaan oo la qaybiyay marka la balamiyo marka la balamiyo waqti sidaasna loogu shaqeeyo oo la wareysto oo kiiska laga qoro markuun ka horeeyay horta ma kasaanaba barnaamij cadaalad oo neyti meel wallan ku qowdo dadka ma ogaayna markii ay jeekoyti oo barnaamijku in badan wacyigelin la ka sameey mayba fahmeen horta cadaalad intii oo neyti wala ku horeey saas iga etab أول هراء أنت محكمة داس هدر لندسنا جودجاسن لنصوبنا وضيال دقمت يا والحل يجرين أرنتك على جرين أما سكلا يلا كسسو بيجري لكن هذا achievement إسفار بدنا جرا مركز أركت محكمة دو أو كله هرات تذكروه أو عدالة دونا دا مركز أركت إذا بدني جودجاسن شغل فايلة يا قبضي أو رنتي دينجاس تذكر إن يو عدالة كويان محكمة دو كويان والبدن وعيقلين تيو الله هاي qalab fiisadu kamiyuutru kuraasu tan adiib argaasi seminar hal mar la neegaaday wal badan in faa'iideeyo